waxa ugu horeeya aan qaadanayno sanadkan insha allahu tacaala waa qur-aanka. qur-aanka nambarka koowaad aan qaadanayno waaye waxaan u kala bixinaynaa laba qayb. qaybta koowaad les waaye, cashar waa ka wada af soomaali. netherland les ayay dhahaan, waa la ogyahay. casharkaaga qur-aanka suuradda maraysid ayaa iga soo bixiyay. yaa suurad si fiican ii dhegeystaa. waxaa lagaa rabaa minimum 3 regals af soomaali 3 sadar. marka suuraddaada kasoo bixaysa matalan suuradda waxaa ku jirtaa aطalaaq 3 waxaa ka bixaysaa sadar 3 raay. aayadda ha dheeraato hadday aayadyaasha gaagaabanta iyo hadday dheer tahay 3 satara ugu yar inaad kasoo baxaydaa lagaa rabo. marka adi xisaabo 3 satar ma awoodi haddaad dhahdid adigo maskaxdaada marka waxaa ku jira yani adi durug ha iska dhigin 3 raay inaad kasoo baxdid wiigoo dhan. hal axadaan soo galowna 3 raayga waa kasoo bixi kartaa. qaybta koowaad waaye. qaybka labaad waxaan qaadanaynaa herhalen. ha aan qoraa herhalen aan ka wadaa. herhalenkan waa muraajaca af carabi, af soomaalina muraajaca lay dhahaan. naktin soomaali waxaa kusoo naqanaysaa waxyaabaha suurada lasoo dhaafay. waxaa ka bixaysaa m+side minimum. hal +side ayaa ugu yar hoos matalan inaad kasoo baxdid. hadday muulig kugu noqoto dhib kugu noqoto half +side waa ka dhigi kartaa, khaasatan suuradyaasha hore lasoo dhaafay oo meelaha oo suuradyaala jirtaa oo dhib badan tahay xoogaa. dhibna ma ahan qur-aanka yusr waayo waa fudud yahay, laakiin ciyaalka waxaan u sheegaa waxyaabaha ugu fudud inay qaataan markaas. yani kan outya huft la socoyaa kitaab ma laga akhrinayo kulli maskaxdaada madaxaada ka akhrinay maskaxdaada oo soo gaabi maskaxdaada ayaa ka akhrinaysaa. marka adiga inaad soo gashid dugsiga qaybta koowaad aan baranayno wuxuu qaadanaa 30 daqiiqo camal hala fiirsis ilaa 45 daqiiqo qur-aan aan akhrinaynaa iyo muraajacada. haddaa idhaahdid macalin ani herhalenka ma baranin kan ma baranin kanaan kasoo baxaa maanta halaf oo punta ayaa lagaa jaraa maalintaas. haddaa dhahdid maanta herhalenka kaaga soo baxaa lesson kaaga soo baxay halaf punta lagaa jaraa. yani complete inaa kasoo baxdid waa kulli waa inaa asigoo dhan kasoo baxdid labada qaybbo herhalenka muraajacada naktinka iyo qur'aanka leska aada ku jirtid leskaaga iyo herhalenka aada maroosid. qaybta koowaad ma la fahmi hodan ما فهمتي؟ معلم. سعيدة؟ سعيدة؟ معلم. فهمتين؟ معلم. اوكي خيبت لبعض وقد بقى. خيبت لبعض waxaan qaadanaynaa insha allahu tacaala lezen in netherland ya lezen waxaa la dhahaa akhri qiraa'a akhrinta. marka akhri wax inaa akhri sidaa lagaa rabaa. lezenkan muxuu kala baxaa asiga aba qeybaa u kala bixinaynaa asina.
les oo lesen oo laga rabo housework iska dhaaf housework hadhowta noo dambeeyo dugsiga yani groupka dhexdiisa waxaa loo akhrinaa suurad macalinka oo dalbado haddaan dhaho mathalan suuradda التغابن أو سورة المنافقون عندها إنت قري سورة المنافقون على قبحة فسورة المنافقون سورة دان وهذا أنا كون دان سورة دان المنافقون في عربي قري ولا هنجادنا واحد دين ربنا آخر لأنها هنجاد لا سورة المنافقون أنا تصالح أنا أسوقاتيا هنجاد ديسكا waxaan laga yaabaa inaan ani iskheeranka u furo aan dhaho kelmaddan labadan aayad ii hingaadi inaan u dhaho waxaa laga yaabaa inaan u dhihin waxaan dhaho akhri le inaan u dhaho waxaa laga yaabaana labadaba shay inaan isticmaalo badnaani saasaa isticmaalaa akhri inaan u dhaho kow waa wada idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulu llah wallahu yaclamu innaka markuu gaari innaka ii hingaadi aan dhahaa see u hingaadinaysa adaa laga rabaa hamza kasraa nuun shadde in nuun fatxana inna kaa fatxaka innaka waa inaa hingaadisaa meeshaa u dhaho stop meeshaas hingaadi haddaan ku dhaho waa ii hingaadinay marka leysonka qaybta koowaad saas waa oo galaaska dugsiga dhexdiisa uu baranayo qaybta leysonkan groupka waxaa iskale nuuraaniyada dhameeyan yaa lu isku khasin groupka nuuraaniyada dhameeyan haddaa nuuraaniyada dhameynin akhriska kaseenin suuradoo dhan mu lagu dhahayo qur'aan xataa ma qaadanaysid waxaa laga rabaa kow leska casharka nuuraaniyada inaad dhamaysid yani groupka waxaa lagu gelinaa oo yaryarka oo qur'aanka nuuraaniyada baranooyin groupkaas ayaa ula soconayn laanna qur'aana ka baxaa qur'aanka waxaa ka muhiimsan horta ma akhri kartaa qur'aanka see loo kicinaayo ma kasii kaas ayaa ka muhiimsan markaa kiciska baratid adiga keligaaga akhri kartaa adiga keligaaga ayaa xifdi kartaa groupkan waxaan u malaynaa nuuraaniyadoo dhan waa dhameeyeen marka haddaad dhamaysid ha iloobin kana asaaska oo akhriska markaa rabtid inaad wax akhrisid kana asaas kan asaas waa nuuraaniyada haddaad hingaadinaysid kelmad hingaadinaysid haddaad akhrinaysid nuuraaniyada markaad dhamaysid wax walba waa akhri kartaa bobsiisna isku day inaad akhrisid laanna waktiga waa yar yahay gruubo badanne waa lahaayaa inay soo galaan ee rabaan inay wax bartaan qaybta koowaad saas waay qaybta labaad housework waay housework homework gurigaaga dugsiga marka aan dhameeyo aan group xiro waxaad samaynay adiga waa bixaysaa adi iyo hooyadaada aabbahaada walaalahaada waa isla fadhiisanaysiin qur'aanka akhrista leysonkiisa badiya ana maku weydiinayay meeqa aa soo akhriseen meeqa suurad meeqa aayad laakiin runta haddaa la sheegayo qaybtan ayaa la sameeyaa badanaan ciyaalka u badan yihiin kan qaybtan waa la sameeyaa laanna macalinkaa kor taagan qaybtan oo dhan waa la dhaafaa leysonka except ay ku sameeyaan ciyaalka yani waa la ilooba yani outsondering camal waxaa housework le waay aniga qur'aanka ilaahay subxaana watacaala ilaahay dartiisa u baranoosaa marka waxaa muhiim inaa houseworka aad iyo aad qur'aanka inaa gurigaa ku akhrisatid wax badan inaa akhrisid sidoo carabkaaga u jir oona u garatid sidaa qur'aanka loo akhri lahay mustaqbalka yani maanta muslimnaad tahay qur'aan yani waddan waxaad joogtaa qurba dugsiyada ku yar marka waxaa loo baahan yahay ilaahay khayr ha ku siiyo homeworkiga oo houseworkiga lagu siiyo inaa xooga saartid
suuradaas iyo suuradaas dhamee haddaan ku dhaho adi iyo awdarskaaga hooyada aabbahaada walaalahaada isla fadhiisatiin aa isla akhrisatiin haddaad wax wala aa ka sugaasi laa hooyo walaa aabbo kadaalika maku caawi waayeen ana isoo wac of codka isoo duub macalin kelmaddan see loo akrinaa iisoo sheeg leh of iisoo hingaadi anina waa kuu soo duubaa cod anigoo aan hingaadinayo of video xataa aan kuu soo duubaa anigoo aan hingaadin marka waxaas ana waa kaa caawinaa laakiin adigana dadaal inaad keentid biidni illaahi tacaala waa la fahmino qaybta labaad سعيدة هند ها معلم. فهمتين ها معلم. اوكي هضن ها معلم. qaybta saddexaad aan qaadanaynaa qaybta saddexaad waa muhiim aan isku dayno aan dhahno waxaa la dhahaa qaybta saddexaad adkaarta iyo ducada duca la qaadanayo iyo adkaarta waxaana u kala baxaa ducayaashan u kala baxaa saddex ducada koowaad nambaraya leeyihiin roostera haystaa warqada haystaa whatsappka kuu soo diray haddii rabtidna youtube ahaan waa helaysaa inaa nambarka aan kuu sheego oo ku dhaho nambarka 13 aan akhrinaysaa tusaale le waaya befabelt ahaan 13 ducada 13 lagaa rabaan dhahay مثلا warqadaa ka fiirinaysaa warqada ahaysid nambarka ducada 13 waaye kor ayaa ka akhrinaysaa awdka ku kor maskaxdaada waa soo xifdinay maskaxda markaa igi akhrisid maskaxda ka akhrisid macalinka u akhrisi waxaad wiiga damba lagaa rabaa Hausberga oo inta ku qoraayo Hausberg nambarka 15 ku qora bas waxaan ka wadaa haddii deertiin iyo akhrisid maanta volgende week waxaan kaa rabaa nambarka 14 fahamteen waxaad dhimnaana ducada waxyaabaha ku saabsan hadda waxyaabaha ducada ku saabsan waxaa dhiman inaad ku camal fashid shaqada camal waxaa lahaa haddii musqusha la galaayo musqusha markaa galaysid inaad ducada akhrisid waxaa ka wada tatbiiq ay dhahaan carabiga inaa lagu camal falo waxyaabaha adiga aad samaynaysid inaa verkiga waayo waxaa adiga aad netherlandka waxay dhahaan verk inaad ku camal fashid waxii adiga aad lagu dhaho inaad ku camal fashid aa lagaa rabaa shaqadaadoo dhan waxa waaye inaa markaad duca baratid inaad ka seexanin haddii maanta qof kasto salaada dugto ataxiyaat ma iloobayo marka ducaa rukuuc ma iloobayo ducaa sujuud ma iloobayo faarum lianno waa markasta salaada dugtaa ma iloobayo marka qaybta ducada waa muhiim waaye duca kasta aad qaadanayna anaga waxaa loo baahan yahay ducadaas in yani lagu camal falo anina mani daba joognaa mani la joog yani hooyadaada iyo aabbahaada joogaan guriga mar walba markay sanadka dhammaad waa weydiinaa ilaahay khayr ha siiyo waalidkaan weydiinaa maku camal falaan ciyaalka wixii oo bartaan quraanka iyo diinta iyo ducada waxaa ka wadaa marka guriga laga baxaayo maxaa la dhahaa bismi illaah watawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata illa billah maalin kastaa guriga ka baxdaa iskoolka aada maalin kastaa ka baxdaa iskoolka aada ma dhahdaasas marka ma dhahdid kuntan kaa jira Hausbergaga guriga marka inaan ku camal fashid waaye
لأن دين تو برنوسا معنى حسين وبرنوسا هذا إن هذه علم هذا بري مستقبل كاجواي أو جنة إله سبحانه وتعالى أو ربط إنها قشيد جنة داسنا وحلو قلا إنها كو عمل فشيد وحي دين إلهي كوتهي إنها لإمادة أو نكو عمل فشيد أجر بدن إنها بتسك أجر كاج إنه بط يا اسكو ديسا بإذن الله هاوس برجع ومهم كوري إنه وحي هذا روسي إنها كو عمل فشيد إن شاء الله. أوكي قيبت أفراد إيماننا ما فهمتين هالهان قيبت أفراد رايفنك خورالتان خورالك الصومالية خورال خور مركان كو دهايو كان خورالك المها ضعيف أي كويين حدينا استهنو ولي هند سعيدة هذا ما مغلان يعني وحي هدان أصدر أسبوع 10 markii la saaro daqad markaasay soo qoraan hal jeer way soo dirayaan bishii hal jeer camal ay soo dirayaan inay qoreen taasna ma la rabo scrifinka waxa uu kala bixiyaa labo koowaad waa muhim kan oo kitaabka adika fiirsanaysid aad qoraysid مثلا waxaan ku dhahay qor تبارك الذي بيده تبارك أخري سورة تبارك الذي بيده يا أخوي أبو حنين تبارك الذي سانا له وأبو حنين من كوات خورال كواي سيدي نورمال خرجنا خور قطاك عادي تاسني سبورداني وسينا آيات الخرايو واني شيغا آيات سوخوران بس واسو خوريسين لأن إنك قاعدة نوراني دو هذا مثلا فورد مال خراي لكن آيات أني ده قل أعوذ برب الناس خراني ده واسو خوريسا وبوحنيسا فرت هذا السيدة أخرى حانتا هي يسيلو فهم يو أيام كاس أنا يسوور يصدر مركان كودا وفيرنا فرت هذا فرت هذا أخرى حانتا في عنتا الفهم شغلك صح أو قرتي مركز بوندا هليسا هذه كله وحن كودا مي أبني يوسف مركز عصبر هذا وآخري كان كوات خورالك عادي نورمال هو جوجل سكريبتي قالين كبوتلود كاستعماله بين مخنيت واي حكى وضع بين ك قالين كبيرها استعماله هذا حتى أنا وين هذه جروب وين فريا هذا وحما قال غلط كي غيري مي أنا هذا حنبرنونا هذا غلطي دوا خوم إن قالتا إن تشتتا أنا نو حنجعلها مركزتو إن هذا وحي غلط إذا قعنت هذا إنه مسحتي ما هن يعني بلاسايت كالعصب أفرتي بلاسايت عصب سوق سحدي يعني الصفحات كلا إنها فرتي مركز قيبت كوات هلا هاسوا قيبت لبعض أن قادن دون إن شاء الله وديكتي ييرس كان لبا وكلا بحا أدو لغا مخلاي هذل ييرس كان أنيغا وحان سو دوبا عد وسو ديرا والدك وان كربا إنو إيسو ديرو إسلا حدي إسلامانتي 10 أن قادنونو إسلامانتاسو إيسو ديرا كو ديكتيغا لباد وكلا بحاي والدك بوك سكريبتي وسو قدرنا wiilkiisa u dhiiba aayad oo u yeerina soo khor hana camala loo dhaha hana khor waxaas hooydii aabba camala u yeerina waxaas waa soo qoraa maalan xataa haddii rabtiin ciyaal ahaan waxaan rabaa inay si dhokso u qoraan
كلمة مركبة دقيستان كلمة داس انتي خورن وهنجات سنايان سأل سي فتحة ساء همزة فتحة ساء لام فتحة لا سأل مثلا هوي دا ساس كوتا هذه كوسو يريس خلينا كاغا قادني سأل أخوري سائل سين فتحة ألف مد ساء همزة كسرة إي سائي لام ضمتين لن سائل dus digteegan hooy aaba iska leh iyo walaalkaaga weyn hadduu walaalkaaga weyn mutacallim yahay oo qur-aanka si fiican u kaso oo kula fadhiisanayo oona cashar kuu soo yeerinayo waa fiican tahay haddii hooyadaada aabbahaada wax kuu yeeriyaan iskriftigaas markii sanadka la dhammaanayo iskriftiga hore usoo qaad ayaan dhahaa aabba iyo hooyo wixii horteenaan arkaa report camal oo yahay ana aabaha iyo hooyadaada ayaa report siinaya inay isu gudbinayaan haddii hadal maqlaynin aaba iyo hooyo hadalka maqlaynin weligaaga wax ma baranaysid iska dhaafay qur'aan xataa iskoolada ma ku fiicnaanaysid dadka wax baranayaan waa dadka baari naqdeen runtii aan ii sheegaya xataa haddii gaaladan aan arkoosid oon aan dhahno waddankooda haddan joogno haddaad aragtid cunuga aabihiis iyo hooyadiisa hadalka maqlaya cunugaas iskoolkiisa wuu ku fiican yahay buundooyin fiican oo keena laakiin haddoo oo discussion samaynayo la doodayo la kheelkheelinayo cunugaas waxaa arkaysaa gadaaloo markasta marka adiga hooyadaada aabbahaada markasta baari u noqo aragsee horumar u gaaraysa waa horumarey بارك الله فيك قيبت أفراد سخرايفنك وانا مهم ملا فهمي وفهمت انه سعيدة ايو هند ايو هضني هنا معلم وكتجينا مركز جروب خيبت شناد عن قدبينا خيبت الشناد عن خاذين إن شاء الله تعالى وخيبت التربية داسنة سيدي لو جوجو وحاربنا إن التربية الإسلامية الصحيحة إن قاضنو التربية الإسلامية الصحيحة إن قاضنو تربية داس وحيكون سابسنته كو عقيدة فقهية سيلو يسقادنايو آدابته oo marka wax qofka cunaayo aadaabto leeyahay cuntada marka wax cunaysid iyo kadalika saddexaad siirada nabiga calayhi salaatu wassalaam siiradaas waa qaadinayna hadduu ilaahay idmo caqiidada ayaa ugu muhiimsan annagoo waddan oo gaal aan joogno waddamaha qurbada aan ku jirno caqiidada islaamka waa muhiim waaye tanaa ugu muhiimsan iyada number 1 حتى علماء وحيدان القرآن كلا أخرنا إلى حفظنا عقيدة أيك مهم سنة عيال كلا بر كو أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا صفي عن لقريس أنا فهما إلهي سبحانه وتعالى أنا يعني دين توذ صفي عن وهذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على وضع عقيدة فقه وحيابها كالعبادة إلهي سبحانه وتعالى نأمر الله صلاة الصونك زكذا باب فقهي قلي النبي عليه الصلاة والسلام سيفيقيس يسير النبي عليه الصلاة والسلام إنت الله قادنا مركز تما خاذكرنا وقتي قمنا وأنا عريري ما قصدي لكن سيدي لو جوجو وحان قاضي دونا إن شاء الله وحلقها هايو برزنتاتسي سنة كان وكالة دويني برزنتيشن إنجليش محاضرة عمل كلمة أنا أقولها وحان لها سنة waxaan u dhahaa مثلا hodan waxaa soo diyaarisaa موضوع عناصر أنت verbiga anaa dhiibaa marka sanadkan ayada awal waxa waaye waa ida doori jirto may ana hadda on the verb anaa siinaa ida marka raadsanee way soo diyaarinee marka ay soo fadhiisato waynu muxaadareynay anagana waa dhegeysan
يعني laakiin qeybahaashan caqiidada tarbiyada caqiidada fiqiga iyo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku saabsan yahay inay soo diyaariyaan waa qeybta shanaad waay aan qaadanayno tarbiyada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo islaamka ah oo nagu tarbiyeeyey oo loo baahan yahay khaasatan waqtigan hadda lagu jiro oo dadkoo dhan badnaan islaam muslimiin nahnay tarbiyada islaamka aan dayacnay ilaahay hana soo hadeeyo waxaa laga yaabaa dhul gaal anagoo joogno gaalada inay ku camal falaan wixii tarbiyada islaamka ee nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sheegay eega inay ku camal falaan ama islaamka muslimiinta waxaa arkaysaa dad khiyaanayaan dad been sheegayaan dad ilaahay subxaana watacaala qish la imaanayaan waxyaabahaasna ilaahay ogoleen baa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka tuugaynaa dadka diinta ilaahay subxaana watacaala wax baray inaan naqano waxaan ka tuugaynaa kadalika aan ka baraynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay subxaana watacaala nuu camal siiyo camal waxaan ka wadaa inaa nuu waafajiyo inaan ku camal falno waxayn baranay insha allahu tacaala inuu ilaahay nuu waafajiyo hada wabillahi tawfiiq ilaa hadda halahaas ayaan insha allahu tacaala ayaan isku dayaynaa inaan qaadano qof su'aal haysta oo waxyaabahaas ka mid ah la mid ah waa i weydii karaa waa ii soo diri karaa whatsappka waa i dhihi karaa macalin maxaa inta ma fahmin waa ii soo diri karaa waa ii soo sheegi karaa insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq